jawhar kii aan jeclaaday oon yaraan maaragtay la kulmay unbu ii yahay balse anu waxaan idhaahdaa hadda imikaaban kasii jeclahay حبيبتي ولا ويش؟ الحمد لله وانا اللي قال موقع هي بس ايدي هذا جزاك الله خير. اوكي. شغلنا نروح اسكاله. ولادك شغلنا اسكاله شيخ. ايش هو بس؟ فاميلي جعلك اهلي بنا هذا. خير الله aniga waxa ii shaareen nin baan maalin dhaweyd maqlay wuxuu yiri Jawhar Jacayl maya Axmed Jacayl kulay macalimiinimada أنا مربي magacaygan saarsanaya alxamdulilah siba cumar baa la yiraahdaa magacaygan ku joogaya anigu waxaan rabnaa kaliya in lagu xasuusto inaan dadka wax barno kaliya kama rabno waaqiis ولا ليلة ولا wax kale jacaylkayagu annaguna dhex yaala waa wax private waa wax noloshayada ah laakiin mucallimiin baan leeyahay waxaan jecelahay mucallimad inay arko oo wax yar hadii la iga faa'iideysan karo la iga faa'iideysto tajribaduna way sii saacideysaa laana waxa haddaad ku nooshahay way ku fududahay inaad ka hadasho laakiin haddaanad dhadhamin oo la garanaynin wuxuu yahay ma ka sheekeyn kartid horta marka iyaga horeba waxaan iska sameyn jirnay sida caadiga dacwada de masaajida iyo konferensyada iyo meelaha ma aragtay marka la nooga yeero baanu ka hadli jirnay in la helo qoys wanaagsan oo fiican moogta deeto waxa ku xigtay in aan sameeyno waxa la yiraahdo love challenge halkaasaan marka aniga iyo wadaadu aan go'aan ku qaadanay in wixii caadiga looga hadli jiray inta la iska daayo in loo bedelo يعني inay ka soo baxdo wax ku ool ma garan Soomaaliyeed jacaylka si fiican u yaqaanaan laakiin taariikhan way leeyihiin laakiin sida loo matalay loo sameeyo way nagu yartaa inta badan mugta maalin baa jirtay aan xanuustay marka waxaa dhacday xaqiiqatan in wax kasta la ii keen raashin wala ag fadhiyaa waan jiifaa laakiin wala fahmi lahayn saaxiibkan waxaa hayay dareen ah in uu rabay guur marka de guur gabdho 100 gabdhood ma meesha joogo laakiin hiba ku dhex jirtay 100 gabdhood ma fahmi marka hiba way timid way fiirisay 100 qof baa soo ziyaartay way iska noqdeen laakiin ziyaarada hiba way ka duwan ziyaarada hoos marka soo salaamu alaykum way hoos soo tiri dadka baar maqal codkeedii markaas aan waaw hiba soo gashay marka qofka aad raacaysa dooranayso waa inaad quality ku doorato ma iska raac ma qof kasta gabar kasta iska guurso ma way timiday way aragtay xaaladeedii oo aan fiicnayn deeto way noqotay waxay doontay raashinadaan aniga ugu jeclaa iyo daawo sharoobo iyo kiniin marka kharash badan bay gelis marka ay diyaarsanaysa iyada laftigeedu kala farad bayd moogtahay marka waxay tiri ninkaan khatar waaya la sii deeyay marka aniga waxa aad ila weynaaday oo iga duwanaaday runtii 100 qof oo kala timiday maxaa iyada ka duway waay waxa eri way ka fikirtay way ka walwashay she's caring and loving so ku dhag lama sii deyn karo halkaan حاجيه markay raashinka ii keentayna waxba ma cuni karin marka hore waan cunay sharoobadiina waan cabay within half an hour warankii ahayo iga go'ay kabaad maxaa dhacay ninkay dhaqaaqi la waan balada soo fariistay waan istaagay waan dhaqaaqay gabadh kastoo timaada waan barbar dhigaan hibo waxay noqotaa waxaan jirin batani مفاد مرة هيبة وحي ما قاعد أنا هيبة ولا gift مرة وحنا كان gift كي بدي سواد أنا أقول جوهر باتا يا جوهر جزاك الله خير والله العجيب أنا صور مرتي
dad waxaan ahay yaraan isku caroosay yaraan isku soo jeclaaday muddo fara badan isa sugaayay imtixaano badan soo maray ilaahay soo ka guuleysiiyey oo kasoo gudbay in waxa noloshayada factorka ugu weyn amba shayga isku keenhaya waa jacaylka aan isku qabno runtii alxamdulilahi rabbil caalamiin jacaylkaasna waxaa ka dhashay gabadheeda quruxley ee curadeeda raxmo waxaa ku dhashay gabadheena labaad nasro axmed bilaal iyo raxmo alxamdulilahi rabbil caalamiin marka dadka qaarkood waxay yidhaahdaan runtii noloshaad soo marteen markaan fiirino gabdhihiina u baqanaa gabdhihiina ayaan u baqaynaa because waxay ku koreen leanna waxay ku koreen jacaylkaas iyo xubbigaas iyo wanaagaasna dhex yaala oo kaftan leh oo xataa la isdagaalayo oo xataa la isku qaylinayo laakiin markasta aad madaxa ku haynaysid qofkan waa qofkaagii meel loogama socotid yaa dhibaatadan taalla waa dhibaato laakiin isaga maaha qofka xun aniga maaha qofka xun ma garatay jawharkii aan jeclaaday oon yaraan maadaragtay la kulmay unbu ii yahay balse anu waxaan idhahdaa hadda imikaaban kasii jeclaha wallahi in lagu jeclaado waa waxa ugu wanaagsan adduunka jira lacag waad heli waad waayi wax walba waad heli laakiin jacayl inuu qofku jeclaado naftiisa oo dhan ku siiyo waa wax aanan fududayn ilaahay un baana qofka siin karaa inaan isleeyahay anigu alxamdulilah rabbil caalamiin waxaan dhahaa saaxiibadayda nolosha ku tilmaamay yacni ma aha xaas ma aha way dhaafsan tahay colleague baan nahay team baan isku nahay waan wada shaqaynaa gabdhahan baan wada korsanaa wada socodka wada jirka wada samaynta mawduucan inaan ka wada shaqayno guryaha aan dhisno jiil aan soo saarno taasaan kaga duwannahay dad kale hiba oo mutacalimada oo wax taqaano oo wax baratay oo research samaysa aniga oo macallin oo wax raadiya in aan dariiqa dacwada aan ku heshiinay taasaan ilaahay ugu mahadinaya subxaana watacaala nimcadda uu ilaahay i siiyey bacda alislaam iyo iimaanka waa axmed jawhar wallahi been markuu sheegay lianna waxa weeyaan gabdhaha khayrkay ah amba maaragtay aan wada caroosnay boqolkiiba imisaa ku nool rafaad ma garatay waxaayoo dhanna maxaa sababay waxaa sababa waxa weeyaan markii ugu horreysaa waqti laysa siiyey حتى هذا دبدا كجورسته أو قفك أنا تاريخ هراء أنا لهين أو جوركين يو عروسكينو ونجرب هذا كفر بين هندروا والله سمين كرا ما هو وقت بكامل ده هوين هذا بليز وقت السي هذا أكيد دون النتيجة لك صباح دومركو ديار بيهن أخي ديار بيهن وح يارا وح كالا يرا هذا وح نوض يرا هذا وح كحيستا وح لا شيكيستا وح لا فريستي لايهن marka waxyaalo yar yar oo routiinka ka baxsan hadii la sameeyo waxa weyn jacaylka way xoojinaysaa runtii way xoojinaysaa jacaylka dadka qaarkood way ka yaqyaqsoodaan ama waxay u arkaan wax ceeb ah anu waxaan u arkaa in ay tahay firaaq ama culimada Soomaaliyeed aan ku soo celiyay yacna xoog loogama hadlo xoog waxa looga hadlaa zinada anaga casharkeena waxa ku jira cashar la yiraahdo qurxinta qolka hurdada qoysas badanna raali ahaan shay raali ku ahayn qolka hurdada ayay ku burburaan kama arkaysid inta badan in laga hadlo qolka hurdada xalaasha ah muxuu kaga duwan yahay zinada lama promote gareeyo lama sheego raaxada ay helayaan wiilka iyo gabadhu markay isguursadaan ay qolka hurdada ku helayaan caafimaad ku jira إلهي بقى فرحية أجر بقى الله قرية صحابة أخوي لا يابي وفي بضع أحدكم صدقة فهذا مركز شيء على مرور الكلام ولا يالمراو ولا يقود بقى قار كود واحد يقول لي ورشان وحنا قدا إلهي مغاني وان نقاناي نقدا سيلادي بقى كان ليس أفر الله بقى ساعات حل أمه يشد دليرة دي جوركي معانكي سير ما رحتي ومشي يديش يا أشياء مركا لوقي سوق على سلوى ذكري وأنا دب مركا إلا بروموت كريه جور كل راحة سيوليه أنا مركا حلنا إن لبرتلا يسبرو لقونا ديري جريو سوني بيجو تفسيني دنيارة إن أي جور سدان مركا جور سدان الدين تود النص دنا يكمل ما يسوي نقول ديري جريو ولي بالله شيء معان كلا كوجر
waxa ugu fudud Axmed waxa ugu fudud waxa weeyaan inaan wax ku siiyo koobkaas inaan ku siiyo waa inaan lacag ku soo gado Soomaa oo keeno oo doono oo soo iibsho oo laakiin inaan kelmad yar ku raahdo oo xabiibo ku raahdo oo naftayda aan ku raahdo oo jawhar aan ku raahdo oo nacam aan wax wanaagsan qofka u doono waa free waa bilaash marka cilaaqadiina waxay u baahan tahay boorka in laga jafo in wax yar oo cusub lagu daro annagu waxaan barnaa jacayl kaliya ma waa isfahanka labada qof qaabka in noolaan lahaayeen nolol fiican say u heli lahaayeen isfahankooda say u wada hadli lahaayeen intaan baranay baaba ka badan ba wax walba ma garan marka walaal waxa weeyaan insha Allah wax badan baa ka baran ha bartaan dadku